dadkaygoo la dhameeyey oo dhibaataysan oo silacsan calool bannaan taallo meedkii leeleeyaha 21 waa dhan yihiin misena ma la qaadi karabo waa ay dhooban yihiin ilaa maanta anaga dhan loola dildilo yaa waddankeena anaga iskala beereen anaga masiibaan dhahaa tan oo kale maan dagaal iyo waxa iyo dad israadsanay waa ka badan tahay wiliga intaan nolosha aan la ekaa konton jira ah wiliga meedii ma aan soo istaagin aan gal maanta xanuuna isoo galay dadkaygoo la dhameeyey oo dhibaataysan oo silacsan calool bannaan taallo meedkii leeleeyaha 21 waa dhan yihiin misena ma la qaadi karabo waa ay dhooban yihiin meeshii ma la qaadi karo bar loo qaado guryihii Baghdad alifow gaal gube waxa kaaga sii daran guryaha wixii ku dhinta lama oga wixii banaanka yaal waa waxaan sheegay 21 la sheegay ma fahmaysaa haddana waa dhibaataysan isbitaalka weyn waa meesha aan joogo hadda oo afgooye wax ma liday kugu qaba karaan lahay haddana waxaan qasabtay inaan haddana baabuur kale haddana aan baabuur aan rarno oo aan u rarno sidii ay hadii ilaahay ku leeyahay qudaartii oo kale loo raro dhaawic lees dul saaro oo loo qaado isbitaal Madiino صلى على نبي مو إله إلا عبسنا مو عند الإسلام أهين ومن سجتنا وطق ما جورنا ما كهجرنا ورإله كعب صدا ورشعبنا الله صو وقت بات تيسنا بيرلي أنا قعد أنا وحك سوقين ما إله وحك سوقينا عدالة إله كسوقينا دول كاسا وحك قدنا أنا ورإله إلا عبد صدا يا أخي لا بجيرا كجرو سدح جيرا كجرو أمولا كجفتو وفهمت هذه قبله أبدا إسلام هو يلا دمر ما أركي كرت الديار ما أركي كرت دمر يلك ما قلت قانو دمر كان على بابيه ما حد سبب حولا وحال الدوفيا كان أو عنين كان الدوفيا أو رجع على الدوفيا ما وحال الدوفيا كان وحا سعم على الدوفيا بس دمر كان الجواب دق ما هدي لك أنا وهدي الصومال كل إلى بعتن قفوت oo ilaa hadda la soo sheegay dadka kalena laga raadiyayo beeraha iyo meelaha kaleenta iyo kanaalada oo ku jiraan hadda waxa taaganahay isbitaalka degmada Afgooye oo dhaawicii caruurtii iyo dadka waaweyn wax lagu qawaayay oo hadda aan u sii gudbinay magaalada gudbinay isbitaalka Madiino aan u gudbinay dhacdadaasna waxaan rabnaa sida uu dhaqsiyaha badan sare ra'iisul wasaaraha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ciidanka ninka madaxda ah ee Mahad Salaad inay nooga soo garaawaan dadweynahaas meesha ku dhamaaday ayaga ayaa indhoodna ku arkaayo waana duubnay waana haynaa meedkoodna waa haynaa ilaa hadda waxaa nooga sii xanuun badan taas meedka aan dib u qaadan la'nahay aana duuga la'nahay taas ayaa nooga sii xanuun badan annaga waa dad ku dhashay tuulada Baghdad waa baaba'ni waana la baabi'i wax ma galabsanin anaga beerley aan nahay dad u qotaan nahay ciyaalkayna iyo haweenkayna waa gogo'een ilaa haddana waa aasila'nahay 3 jira u yar haddaa been sheegayno ama dadka nolol khaldooyo nolol maleeyo isbitaalaha ala aado isbitaal Madiino isbitaal weyna ala imaado Afgooye anaga dul qodotaanahay had dadkii ma daaweysan karno ilmahaynana baaba awaay ma daaweysan karno meedkaana ma duugi karno mid caloosh banaanka taalo mid waa gogo'an yahay anaga beerley ana nahay anaga maxaa saan xiraan dawladda waxa ku cusayna maxiradan anaga dadkan meel ana laga saaro oo la soo garaawo ilmahayna xildhibaanada dawladana laga sheega warka agaaro intii anaga matalayso dawladda ku jirto xildhibaan ahna maxiradan kaada sharantaan ya koowaad maaha mar wuuga ilmanaga dhamaadeen oo dawlad soo weerarayso galayso oo ilmihi dawaalka seen ugu dhamaahayn hadda beeriya waxaan beerahayn falahayna iska dhaxdagni beeraan dhaxdagni aan malu duqay kii gurmad u tago kii dhaawac inuu soo badbaadi u tago diyaaradii way ku celiyay marka hadda been sheegayno degmada Afgooye ala imaado isbitaalka weyn isbitaal Madiina hadda wada gurni ala geeyni taga hadda naga hormara خار جدك وأسوينا خارنا وأسلعنا إسلام نهاي شعوان نهاي وادب توني إمكانيته إلها نجى خالق أنا نجى خابو وحن قربتني ملها السلام عليكم ورحمة الله. معنا أباها نذوق القدرة ما نخبطها على كمركا يا وحنا لسه قربها أدلع نورسينا ما أنت ودن كنا أنا استلبيرين